بسم الله الرحمن الرحيم. waad mahadsantihiin. magacayga waxaa la dhahaa Cali Ismaaciil. waxaan ahay macalinka dhiga jaamacadaha beeraha ee dalka Soomaaliland, isla markaana waxaan ahay gudoomiyaha ururka aqoon-yahanada beeraha. waxaan kaloo ka shaqeeyaa jimciyadda ku naxaysa qaybta qaabilsan cuntada iyo biyaha siiba mashruuca biyaha iyo dhulka. runtii haddaan ujeedada maanta kulankan waxa weeyaan waxaynu ognahay waddankeen Somaliland inuu yahay waddan u baahan in cunto la soo saaro. baaxadda dhulka haddaad eegto hadda aynu beeranaa waxa weeyaan dhulka beer roobaadka ah waddanka oo dhan waa 3% marka baaxadda dhulka loo eego oo ah 137,000 kilometer². marka 3% baynu ka beeranaa dhulka. xagga biyaha beer biyoodkana waa 1%. halka waxaad ka arkaysaa wax soo saarka dhulka aynu haysano iyo dhulka aynu ka manaafacsanaynaa inuu aad iyo aad u kooban yahay. cuntada aynu soo dhoofsanaa waa 3% in ka yar ayaynu cuntada inagu aynu beeranaa. marka halkaa waxaynu ka arkaynaa baahida aynu u qabno in aynu helno dad leh aqoon xirfadeed oo inoo soo saara cuntada isla markaana ilaaliya deegaanka dhulka. haddaynu sii eegno markaa maadaama taa loo sameeyey muddo imika laga joogo 12 sannadood, ujeedaduna waxa weeyaan in la soo saaro kaadir ama dad aqoon-yahana oo beeraha iyo deegaankaba ku takhasusa. si taa loo helo yaa geli kara oo ardayda markaa dugsiyada ka soo baxda dugsiyada sare ayaa waxa weeyaan waxay geli karaan jaamacadaha. haddaba si ay u galaan waxaa jira in dadka waxa weeyaan dadku badankooda waxay moodayaan beeri inay tahay geed la beero. beeri maaha geed la beero. beeri waxa weeye waa subject waxa weeyaan waa takhasus aad u fara badan oo waxa ka mid ah runtii waa geedka carradiisa, hawadiisa, biyihiisa, waxyaalahaas oo dhan oo ku xeeran ayaa markaa la baranaya. marka waa subject iskugu jira science-kii, arts-kii iyo xaggii dhaqaalaha, xaggii kale iyana isgaarsiinta. waa subjectyo aad u kala duwan. marka runtii taasi waxay keentay imika 10 sano u dambeeyay waxaan soo saarnay dhalinyaro fara badan oo runtii ku takhasusta beeraha oo u sii baahan haddana takhasus gaara inay sii helaan. qofkaas wuxuu noqonayaa qof agronomist oo beer aqoon ah oo beeraha aqoonta beeraha yaqaan. wuxuu noqon karaa qof carrada ku takhasusa. wuxuu noqon karaa qof cudurrada iyo cayayaanka takhasuskeeda leh. wuxuu noqon karaa qof dhaqaalaha beerta yaqaana. wuxuu noqon karaa qof yaqaana khayraadka dabiiciga. qofkaasi waxa kale oo noqon karaa waxa kale oo qofkaasi uu u shaqayn karaa dowladaha sida wasaaradda beeraha, wasaaradda deegaanka, hay'adda masiibooyinka, wasaaradda biyaha, wasaaradda xanaanada xoolaha, horumarinta miyiga. waxa weeye miyigu waa wax fara badan. waayo maadaama beertu ayna geed qura ahayn, waa geedkii, waa carradii, waa biyihii. waxa weeyaan waa sidii loo horumarin lahaa dhammaan bulsho degta miyi. dadka wuxuu ka shaqayn karaa ilaalinta deegaanka ayuu baran karaa. waxa weeyaan dhulkeena inaad ogtahay mooyaane deegaankii waxa weeyaan ugu baaba'ay wuu xaalufay. waa nin takhasus noocaas oo kale ah qaadan karaa. waxaa kaloo uu ka shaqayn karaa qaybta cilmi baarista iyo jaamacadaha. wuxuu qofkaasi ka shaqayn karaa meelaha gaarkaa loo leeyahay sida kambaniyada. marka fursadaha ardayga jaamacadda beeraha ka soo baxa fursadaha aan kor kusoo sheegay oo dhan ayuu qaban karaa. ardayga gelaya kulliyadda beeraha maxaa looga baahan yahay? horta marka hore ardaygaasi waa inuu soo dhamaystirtaa dugsi sare. ardaygaasi waa inuu leeyahay xirfad xagga sayniska, xisaabta iyo arrimaha socialka.
ardaygaasi markuu ka baxo jaamacadda muxuu fursado shaqeeya helayaa, mustaqbalkiisu muxuu noqonayaa. dad badan baa waxay aaminsan yihiin ninku hadduu beer barto inaanu shaqaba heli karayn. waa fursadaha ugu badan ee shaqo lagu abuuri karo. ujeedadan barnaamijku markaa muxuu yihi? ujeedadan waxa weeye ardayda inaan u sheegno walba waxan ay baranayaan muxuu manaafacaad u leeyahay dal ahaan iyo naftoodaba. waxa weeye dal ahaan wuxuu filayay taa aynu soo sheegnay oo ahaa 3% in ka yar haddaynu cuntadeena soo saarno inaan bal gaadhsiino sanad walba yool qaadano. sanadka horeeya 20%, sanadka xiga 30%, 40%, 50%. markaa yoolkaa la dhiganaya sidee loo gaadhayaa?